kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada warka XOGTA TV qodobada ku daawad doontaan waxa ugu dooron ciidamada dawladda oo xalay Muqdisho ku dilay ruux wada ka ahaa mooto bajaaj dagaal culus oo xalay Bosaso ku dhex maray ciidamo taabacsan Siciidan iyo kuwa ay tababartay dawladda Amaanka Carabta taliyihii hogaaminayay ciidankii Ahlus Sunna ee ka baxay degmada Gurceel oo isku soo dhiibay ciidanka dawladda Bosaso Itoobiya ku eedeysay inay ka dambeeyeen ciidamadii dhawaan maamulkooda ka goostay kuna biiray dawladda duqa Muqdisho la kulmay dhigkiisa duqa magaalada ee dalka Koonfur Afrika xisbiga roogo oo dhigay banaanbax lagu dalbanaya cadaalad Iiraan oo soo riday diyaaradda Mareykanku beeniyay inuu leeyahay iyo caro xoogan oo ka dhalatay arday ku dhimatay dibadbaxyada Hong Kong taariikhdu waxay tahay 9 bisha 11 sanadka 2019 qodobadii aad maqasheen wixii ahaayeen kuwa ugu waaweyn warka XOGTA TV intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa xalay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Cabdicasiis waxa uu ku dilay wiil darawal ka ahaa mooto bajaaj dilka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay bar kontarool oo laga galay xeebta Liido goobjoogayaalna la hadlay ayaa inoo sheegay inuu askarigu si bareer ah u dilay wiilkan ka xeenayay mooto bajaajta warar kale oo aan helnay ayaa inoo sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya gaar ahaan kuwa dharcad ah iyo ciidamo boolis ah oo ku sugnaa barta kontarool oo dilku ka dhacay ay murmeen kadibna labada dhinac ay rasaasayeen taana ay keentay geerida mooto bajaajlahan saraakiil ciidan ayaa gaartay halka uu dilku ka dhacay kadib muddo uu meedku marxuumku yaalay lama ogo waxa keenay dhacdadan balse waxa xusid mudan in dhowr mar sidaan oo kale degmooyinka kala duwan ee Muqdisho lagu dilay darawal ka xeenayay gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajta waxaana xusid mudan in maalmihii dambe Muqdisho ku yaraadeen dilalka loo geysanayo darawalada ka xeeya mooto bajaajta markana Puntland wararkan ka helina magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari ee dawlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in xalay magaaladaasi uu ka dhacay dagaal aad u xoogan dagaalkan ayaa u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland labada dhinac ayaa intuu dagaalku socday waxa isku adeegsadeen hubaad culus hubka labadan dhinac ay isku rideen ayaa laga maqlayay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Bosaso ciidamadan Bosaso ku dagaalamay ayaa ka kala tirsan kuwa madaxtooyada iyo kuwa ay tababartay Amaanka Carabta dagaalkan ayaa si gaar ah uga dhacay xarunta shirkadda DB Wall ay ku leedahay bartamaha Bosaso warar ayaa sheegay in taliyaha ciidankan Amaanka ku tababaray madaxweyne Dani oo xilka ka qaaday dhawaan balse uu ka biyadiiday dhankiisa xilka qaadista warar kale ayaa sheegay in ciidamadu Amaanka ku tababaray kuna sugnaa xarunta DB Wall ay rasaas ku fureen gaari Cabdibilaah oo marayay bartamaha Bosaso khasaare ayaa la sheegay inuu ka dhashay dagaalkaasi balse lama hayo xaqiiqda dhabta ah mas'uuliyiinta maamulka Puntland weli kama hadal dagaalkan taliyihii hogaaminayay ciidankii Ahlus Sunna ee ka baxay degmada Gurceel oo isku soo dhiibay ciidanka dawladda Cabdulqaadir Roob Lacad oo ahaa taliyihii maamulka Ahlus Sunna ee degmada Gurceel oo wata gaadiid dagaal iyo ciidamo badan ayaa isku dhiibay xalay ciidanka dawladda Soomaaliya arrintan ayaa ka dambeysay wada hadallo saacado badan qaato dhex maray sargaalkan iyo taliyaha guutada 15aad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Mas'uud Maxamed Warsame oo ay weheliyaan agaasime Axmed Madobe iyo Dr. Aadan Roble kulanka lagu qanciyay taliyaha Ahlus Sunna ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Koorogoys oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xiga degmada Gurceel halka oo sargaalkan ku haystay gaadiid dagaal iyo ciidamo kala tagay Gurceel markii ay dhawaan kala wareegeen dawladda Soomaaliya taliya Cabdulqaadir oo wata gaadiid dagaal iyo ciidamo ayaa la keenay xalay Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sargaalkan ayaa mas'uul muhiim u ahaa dhanka saraakiisha Ahlus Sunna wuxuuna hadda si rasmi ah ugu biiray isagii ciidankiisa kuwa dawladda Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciidamadii gaarayay ilaa 200 ee askari ku sugnaa balada Xaawe dhawaan u goostay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xaqiijiyay in jirto in ciidamo ka tirsanaa maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa daraawiishta oo ka tagay balad Xaawo isla markaana aaday degmada Luuq ee gobolka Gada balse sheegay inaysan ahayn wax weyn
maxamuud sayid aadan oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa yidhi horta beled xaawo luuqiyo doolow waxaa jooga hal ciidan oo ah ciidanka Soomaaliyeed oo ammaanka ilaaliya oo waajibaadkiisu uu yahay la dagaalanka al-shabaab. waxaa jira ciidan dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ciidanka beled xaawo oo aaday magaalada Luuq, iyaguna waxay u tageen ciidankoodii kale joogay Luuq. wax dhib ah oo ka taagnaa ma jiro. mar walba way dhacdaa in ciidan meel lagu ogaa ay si amar la'aan ah ama sabab la xiriirta khilaaf dhex mara iyaga iyo madaxdooda uga tagaan xarumahooda. maxamuud siyaadan ayaa intaasi ku daray maaha wax weyn ama sida idaacaduhu u dhigayaan meel ay ka baxsadeen iyo cid ay u baxsadeen midna ma jirto. xogaan helna ayaa sheegaya in ciidamada ka goostay Jubbaland ay dhabarjab weyn ku yihiin isla markaana ay ka gacan geysanayaan qorshaha ay dowladda federaalka ku wada qabsanayso gobolka Gede, isla markaana uga goonayso gacan ku haynta maamulka Jubbaland. goosashada ciidamadan ayaa waxaa gacan ka geystay saraakiisha Itoobiya ee qaybta ka ah qorshaha gobolka Gede si rasmi ah loogu hoosgeynayo dowladda federaalka. xiriirka dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa sii xumaanayay bilihii ugu dambeeyay, waxaana uu cirka isku sii shareeray markii doorasho natiijadeeda lagu murmay dib loogu doortay Axmed Madobe. taana ay keentay in dowladda federaalka ay ka biyadiido doorashadii ku soo baxay Axmed Madobe. duqa Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa la kulmay dhigiisa duqa magaalada Durban. duqa Muqdisho iyo dhigiisa Durban ee dalka Koonfur Afrika ayaa ka wada hadlay sidii la iskugu xiri lahaa labada magaalo, isla markaana u dhexmari lahaa xiriir maamul iyo mid bulsho. gudoomiye Cumar Finish ayaa duqa magaalada Durban gudoonsiiyay hadiyado dhaqameed labis ka turjumaya dhaqanka Soomaalida. dhinaca kale duqa Muqdisho ayaa ka qayb galiyay shirka caalamiga ah ee duqa magaalooyinka, waxaana la filayaa inuu khudbad ka jeediyo shirkaas uga hadlo horumarka iyo dib u kabashada caasimadda Soomaaliya. waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed ka dhacay kulan weyn oo lagu duceynayay dadkii lagu xasuuqay Baydhabo xilligii doorashada maamulkaas ee la xiray Sheekh Mukhtaar Cali Abu Mansuur. boqolaal qof ayaa iskugu imaaday barxad ku taala Baydhabo, waxaana halkaas lagu qabtay kulan duca ah iyadoo la qalay 5 neef oo geel ah. kulankuu soo qaban qaabiyay xisbiga amniga iyo cadaaladda oo gudoomiye ka yaashay Mukhtaar Cali Abu Mansuur hadduu xiran dowladda Soomaaliya ayaa lagu dalbaday inay cadaalad helaan qoysaskii laga dilay dadkii banaanbaxayay xariga Roobow ee lagu laayay magaalada Baydhabo. dad iskugu soo baxay ayaa watay boorar ay ku qornaayeen erayo lagu duceynayay dadkii Baydhabo lagu dilay, sidoo kalena waxay ku baaqeen in la soo daayo Sheekh Mukhtaar Cali Abu Mansuur. ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa 13 Diseembar sanadkii 2018 waxay magaalada Baydhabo ku laayeen dad fara badan oo banaanbax ka dhigayay magaaladaasi, kuwaas oo ka soo horjeeday xarig Mukhtaar oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo oo ay soo afduubatay dowladda federaalka Soomaaliya. Iiraan ayaa soo riday diyaarad uu Mareykanku ku beeniyay inuu leeyahay. mas-uuliyiinta dowladda Iiraan ayaa sheegay inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka. warkan lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Iiraan ayaa lagu sheegay in diyaaradda ay soo rideen ciidamada difaaca cirka ee dowladda Iiraan. warka soo baxay dowladda Iiraan ayaana lagu sheegay in diyaaradda la soo riday ay tahay mid military ama mid ganacsi, balse dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu beeniyay in dowladda Iiraan ay soo riday mid ka mid ah diyaaradaheeda. ugu dambeyntii arday ka mid ahaa dibadbaxayaasha ismaamulka Hong Kong ayaa la sheegay inuu dhintay kadib markii uu ka soo dhacay dabaq. ardayga ayaa la sheegay markii uu ka soo dhacayay dabaqa in uu ka cararayay howlgal ay boolisku wadeen. weli ma cadda sababta rasmiga ay ka dambeysay inuu ardaygan uu dabaqa ka soo dhaco, balse warar ayaa sheegay inuu ka baxsanayay gaaska dadka ka ilmeysay oo ay boolisku furayeen. dhimashada 20 sano jirkan ayaa ku soo beegmaysa toddobaad kale oo qalalaasa siyaasadeed ka taagnaayeen ismaamulka Hong Kong. dibadbaxayaasha dimuqraadiyadoonka ayaa doonaya in isbedel buuxa oo xoog leh lagu sameeyo maamulkaasi, lagana wareejiyo maamulka Shiinaha uu hadda hoos tago. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen XOGTA TV.